دمي وامي خبوب إبليس كلاقى حيري أدوية ذاي أجرك أيها يتيك لهم إلهي النسي يقول صداي إلهي النسي يقول صداي أفورا 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 حديقي قدتي أفورا أفورا حديقي قدتي أفورا 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 حديقي قدتي أفورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أصاب كل فري آدمي جهي روحي أفشى أمر كاي بحي أصاب كل فري آدمي جهي روحي أفشى أمر كاي بحي التاريخ يود قوق راحدا أغكي سوا الباب كجنون اجتهادك قالوا أبا الهليل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين لا رب سواه ولا إله غيره وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه وحن الجذع إليه فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه معاشر المسلمين وأحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلام ككذب إلهي سبحانه وتعالى مهد إسكاله إنه نقول كل مية وحلو كل موحى وخير كبذا كتابك إلهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنا مهد أسوع علينا يا ولا له قدقة رئيس فولا إلهي سبحانه وتعالى خير هسيو اسكو حرنا شذا أي موجين إيه إني ولا لها اسكو كينان سي إلهي سبحانه وتعالى لاسكو برارجيو بالشدين لاسكو حرمو تاسوا وح يعني لو قوم هاد عليو وقف البو ولا الكيس ود ذالا يسيدو أهر مر لها يسيدو بالشدة اسكو كين لها ووح لو فرحو قال هان زمن أي ذاتكو ما أركتي شيطانك وأتلي وشيطانك معناها قلوبتا ذاتك وحكتها تابتي marka hadii la ogaado inuu shaydaanka cadowgaaga yahay aad ogaatid ilaahay subhanahu wa ta'ala umurta dhan sahla ilaahay umurteena Allah fudud kelmadayda insha Allah tabaaraka wa ta'ala wa isxasuusin on kulligiin ba insha Allah dad muslimiina la wadayahay wa isxasuusin on yani ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin isxasuusiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahigiisa in la isxasuusiyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa la isxasuusiyo oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunnadiisa la isxasuusiyo si uu qalbiga iimaan u qaato laana qalbiga hadii maanta dhan laga sheekeeyo adduun waxa la yiri adduunka ku weynaado maanta dhan hadaan ka sheekeyna adduun saan baa dhacay saan baa na soo gashay saan baa naga baxay adduun hadaan ku jirna maanta dhan qalbiga adduunka uu ku weynaada baa la yiri laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala cadamadiisa hadii laga sheekeeyo ilaahay weynidiisa subhanahu wa ta'ala iyo koonkan sidoo u abuuray iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenka soo maalinta u dhaxgaliyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qorraxda u soo saaray oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ni'amkaas farabadan nasiyay
qofka macnaha hadduu isdhaho tiri maba tirin karaba nicamku ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey qof maa tirin kara dhihi kara maanta nicmada ilaahay uuna siiyey anaa soo koobi karo cid soo koobi karta ma leh ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar macnaha nicmooyinka ilaahay cid soo koobi karta ma leh acdam nicma uu ilaahay na siiyena waa nicmat alislaam nicmada islaamka diinta uu ilaahay ku siiyey uu nabi maxamed sala allahu calayhi waali wasalam noogu soo dhiibay hadiyadaas weyn uu ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey si uuna nabiga sala allahu alay wasalam noogu badbaadiyo uu jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala noo geeyo uu naartii ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo haddii aan diintiisa raacno oo nabigiisa aan jeclaanno oon sunnadiisii aan jeclaanno ilaahay meel aan walboon joognana wuuna barakeenaya qalbiga qofka mu'minka ah markii ilaahay laga sheekeeyo ama cadamadiisa laga sheekeeyo qalbigu ku weynaadaa ilaahayba subxaanahu wa tacaala qalbigaas qalbi ka dhigayo qalbi barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacala anna ilaahay siduu nabigeena noo sheegayba calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum ilaahay ma fiirinayo bilaantaada kore ilaahay ma fiirinayo ma caddahay mise waa madowdahay ma dheer tahay mise waad gaaban tahay yacni ma buuran tahay mise waad qaliir baa tahay waxaasoo dhan ilaahay ma fiirinayo ilaahay qalbigaaguu fiirinaya ilaahay hadduu qalbigaaga khayr ka ogaado ilaahay wuu ku waafajinaya subxaanahu wa tacaala wacaza wajal كثير من الناس ذاتك قاركود با وحكو ليهن أنا ما أعرف سنة كم مرق ما يمر هدو إلهي قلبي جي أركو تاسمع تنك هذا ليه مر معناها هدو قلبي جي إسكفي عينه صلاة اللي جمر أو حبل اللي جمر بصوم لأن قلبي جي جا ونكسن تاس مرك حل معه تاس حل معه ولذلك وحنا حسوستا الشيخ يرهذي لمن كان رئيشيان كدين تأد بيقول دقيهن أنا قلنا كل قلنا دين تنا لفظ هذا ما سهل الحمد لله لكن حقا واحد ما ليس إيه إني وحياة بدن سنن كإيه إني وحياة بدن آدو إلى ليان مركز سنة إلى ليان وحكمده قركي aad u ilaaliya iyaga aad bay u ilaaliyaan mas'aladaas qof isaga oo diinta waxba ka aqoon iska tukado laakiin gar weyn buu leeyahay xad aragto waxa laga yaabaa inaad u malayso sheekhi caalimka ummadda aad u malaysaa laga yaabaa garka waa sunnat nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri awfiru liha يعني ما aragtay garka sii daayay nabiga calayhi salaatu wassalaam sharbahana xiir wiir calayhi salaatu wassalaam nin bakistaani baa nin carabi canaanta wuxuu ku yiri maxaad garka u soo dayn weysay buu gar layga marrabo ku yiri qalbigayga hadduu cad yahay oo nadiif yahay ayuu wuxuu ku yiri ma aragtay ani gar layga marrabo waxaan diinta aad sheegayso waxba liga mar hadduu qalbiga nadiif waa runtiis dhan haddii loo fiiriyo oo qalbiga saliimka ah fiican oo wanaagsan oo xiqdad iyo xan iyo uurxumo ayna ku jiran oo qalbi saliim ah oo ka caafisan waxaasoo dhan waa wax fiican oo lagu farxi karo fiican laakiin taasna waa inay keento qalbigaaga hadduu fiicnaado inaad sunnadii nabi sal slam aad raacdo almuhim wuxuu yidhi qalbigaygaa fiican wuxuu yidhi marka soo socotuu yidhi ninkii baa bakistaaniga wuxuu ku dhahay ninkii saas yiri oo yiri qalbigayga aanu fiican marka arinta looma baahna markaasuu yiri marka maalinta soo socoto wuxuu yiri dharka ka soo tago laana wuxuu yiri qalbigaaga xishood baa ku jiro yani xishoodka xishoonaysid qalbigu kaaga jira marka dharna ha soo qaadan oo iska imo adoo qaawan buu yiri marka taasna ma iimaanaysa mar hadduu xishood qalbiga ku jiro marka xishood qalbigu ku jiro laakiin maxaad samaysay dharkii baad gashatay soo ma kadalik wuxuu yiri sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halka muuqato siday qalbiga arinta u gashay ilaahna fahamsiya ikhwaani saliimka waxa loo jeedaa qofka qalbigiisa inuu saliim ka yahay shirkiga iyo macsiyada iyo bidcada iyo waxyaalaha ilaahay una raalli ka ahayn nabigana sallallahu alayhi wa alihi wasallam una raalli ka ahayn qalbi saliimka ah waxaasoo dhan uurxumada iyo ilaahay u naxariisto Umar Faaruq ayaa dhihi jiray alayhi rahmatullah ilaahay u naxariisto amiin daha yani wuxuu dhihi jiray qalbi ka caafimaadsan oo ka fiyow uurxumada iyo wuxuu yiri waxyaalaha qalbiga dhan oo macnaha dhaawacayo ka caafidsan ayaa ilaahay qalbi saliim ah illa man ata Allah biqalbin saliim sheekh ilaahay u naxariisto wuxuu yiri qof Soomaaliya waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay fulaan shaydaankayga nacab ya marka subhanallah shaydaanka ma nacbe wuxuu yiri adiga ma aragtay qalbigaaga dhaawacsan yahay buu ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala qalbi saliim ah ka saliimsan waxyaalaha ilaahay una raalli ka ahayn oo dhan qalbigaasu ilaahay subhanahu wa ta'ala barakaynaya ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada geynaya walidalik nabi ibraahim markuu ka hadlay arinta qalbiga asaga ayadaha soo akhriyo wuxuu yiri yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin saliim ilaahay suurad kale muxuu ku yiri waxaan jeclaa inay tahay suurat safat ilaahay wuxuu yiri wa inna min shi'atihi la ibrahim id jaa rabbahu بقلب سليم الله أكبر قلبي سليم وكهد لجري ما أنت دنبا وضدك أول شيء كين جري أسجع بلغها لي سيدنا إبراهيم عليه السلام كذلك إيمانك وحليه طعم بوليه لدن بوليه إيمانك لدن بوليه سيدا هذا مالك أول دن سنة يسيد أيو إيمانك لدن بوليه ضدك قاركود وحال أركيسا وحكوليه يا شيخو أنا وأنتو كذا وانا صوما لكن صوم كردن وما أركبه واحد دن بوليه ما أنتي وبدر تفسير 10 ساعة صومنا هي ما بدري ما يصوني إن صومنا هي إنكله
iyo maba dareemaya cibaadatu sawm waxa la dhaho dhadhankay leedahay iimaanka aad ka sheekeynaysa maba dareemay waan iska tukadaa qalab samic allahu liman xamida assalaamu calaykum waraxmatullahi waa isku dhamaatay meeshaasay kusoo maba dareemay inay salaad tahay salaadihii nabiga laga maqli jiray oo dadkii macnaha markay aayadda ku dhacda qalbigooda oon jiray oo gilgili jiray oo ninkii waxaa la yidhi aayad marka lagu akhriyo gurigiisa lagu soo booqan jiray 4 bil oo iska jiraday muxuu la jira aayad baa jiray sidii waxaa laga yaabaa 114 in akhrino hal aayadna nagu xuruuftii baan akhrinaynaa laakiin macnihii iyo dhuuxii ma fahamsanin dad ba xarfigu raacsanaya xarfiga dadna macnaha iyo ilaahay muxuu naga rabaa laana ilaahay wax un buu ka rabaa quraanka Soomaa wax buu ka doonaya walidalik bacd as-saxaaba waxay dhaheen ilaahay quraanka haduu yiraahdo yaa ayuha alladina aamanu dhagtaada u dhig wax un baa laga dalbaya ama wax baa laga nahniya laga reebaya yaa ayuha an-nas hadii la dhaho de waa yaa ayuha an-nas ubudu rabbakum way laakiin yaa ayuha alladina aamanu meeshaad ku maqashid dhagta u dhig buu nin saxaabada kamid ah ha sababtoo ama wax baa lagu amraya ama wax baa laga reebaya yaa ayuha alladina aamanu ijtanibu kathiran min adh-dhann يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحن بالغ أمر يا سوما مركا يا أيها الذين ما يشهد القرآن كو أركت كل بالغ أمر دكت أتاج دكت كلية تاج ما هني كو عمل فالكلية كو عمل فالقرآن كإلهي سوء إلهي سبحانه وتعالى كو بركي قلب قرآن كردمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بول إلهي سبحانه قلوب تضو ما يحرنتها ما يقفلون ما قلب غافل أهبا قلب إلهي كفوك سبحانه وتعالى قلب كحل حرن أنا آيده إن كل عين آيات دكت أم بيكون عيسى dhagta kalena way ka baxaysaa ayadda waxaa dhagta inay ku dhacday qalbigana ay taabato alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub qalbiga inuu taabto ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga ayuu ka arkaya subxaanahu wa tacaala hadduu ka arka khayrna ilaahay wax ka khayr badan buu ku siinaya in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wayakfir lakum hadduu qalbigiina ilaahay wanaag ka ogaado wixii lidinka qaatay waa tii lagu yiri waa lidin soo celinaya wax ka khayr badanna waa lidin siinaya laakiin ilaahay inuu ka arko weeye qalbigaaga uu ka arko qalbi wanaagsan oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel iimaanka dhadhan buu leeyahay dhadhanka uu leeyahay waxaa weeye qofka qur'aanka marka lagu akhriyo uu aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala dhegaysto والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود مركو dhegaysto ama qur'aanka oo idilba meeshuu ka dhegaysto qur'aanka iskama maqlaayo si caadi ah uma maqlaayo iimaankiisiiba u siyaadmay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna al-iimaan lahu halaawa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam حلوت بوليه إيمانك حلوت ما تقانين معان كبدن حلوت بوليه إيمانك قف كده دمية قف كان دميننا وقف معناها كفوق أما آياته إن دجاها أودا في وإنسان صوش يقني قف كجرن وحاله يرى عنتذا أمر دمي سوما ننجرن ما تسبتال كجرو حلقة إن هيل بلوكين وحلوكين هذيك هداد أركض بحلقة ساعة قاس إنه كوف اللامبة لكن إنك جرن مالك وها يستاع عنتذي بلوكين وصلدي هيل بكاء فدريشن كي وتقانين فترموس كي وحي أدون كي خيرات كي إذا اللي مع شروي بلوكين وحصلنا هذا يكون دمي يعني كان جرن ما بقول دمي كذلك قف كجرن أو إيمانك سقلبك وكجرنا أمر دم صونك أمر دم الصلاة سيدا نكاس جرن وكله قف لكن قلبي سفيو يا وحول باول دمي صلاة دي باول دميسو آيات دي بولت تأثريا سيدنا عمر رضي الله عنه إلهي كرى له حاليري مركي لأخري والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع الله أكبر آيات دي بقى شالي عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه آيات دي مركو مغري إن عذاب ربك لواقع عذابك ربك وحق ولا دعيا ومعناها قيامة جرت عذاب الله تبارك وتعالى آيات دي ولا دعي أو قولي سال وسو بوقن جريبا لي سبحان الله أنا كم من الآيات ما أنت اللي أخريها قرآن كوان دمينا وسين قناه وصون قناه وحبا أخلاق دي اسكما بدلين غيبة دي حنتي سيدي ولا وجرا سيدي ما أركتي قلبي ووحني يهودا وعسني هاي قلبي متى بن قرآنك حسابي أنت الذي حسابي اسم ميزان أنت الذي ميزان وحضو ما ليس ميزان كليا أدونك جرو آخر الميزان باجرو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية ميزان باقف كلا سارية أصدق عمل كي سوى لميزان يوم القيامة لا إله إلا الله وحال يري ميزان بالا سارية قف كان مال بالا سارية ترجح به لا إله إلا الله ورقد بطاقة بالا يري حديث البطاقة وتقانين انت الله سارو ميزانك حقك الله قفك مؤمن كلا سارو لا إله إلا الله بما أركت لنك كلا أدعي سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إيمانك أبو بكر وحيري إيمانك أمد إيمانك أبو بكر باكو كإيمان وين ما إيمانك إني إيمانك أبو بكر باسكم ده محود الدمي سو قرآنك ما ميس بدلني قرآنك وقرآنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويت الله وحبي كذا دميين سوما إيمانك بيدرين سدين أدم بو سمي إلهي سبحانه وتعالى قرب وقاري قفك ولا ميزامية أسجى حتى ولا ميزامية يوم القيامة أسجى حتى قفك مؤمنك ولا ميزامية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واتقني سوما عبد الله بن مسعود ومن قراء الأمة ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرت شرف وحقوف لأنه صحابة النبي كمديه دون علمك حتى لهين قفكم حقوف لأن صحابي إنه النبي أرك عليه الصلاة والسلام صو شرف ما إنديس يكون راح يستين أركتين النبي عليه الصلاة والسلام وحكفي عن باجره النبي أركتين هديد الشرعي سقالته إلهي وجنده جينا يابا إيش النبي محمد أركتين ودي شرعي سقاده ويسنا أبو جهل يوكر حقو جرا يا سبحان الله مركا
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bin mascuud ayaa nin dhuuban buu ahaa laakiin iimaankiisaa weynaa marka inaad dhuuban tahay ha isdhihin hadduu iimaankaaga wen yahay dhubnidaas ha fiirin waxa dadka ay wax ku miisaamaan adiga micyaarka dadka ha fiirin ya ولكن waxaa fiirisaa iimaanka qalbigaaga ku jiro sayidina cabdullahi bin mascuud ilaahay ka raali noqdo wuxuu yidhi calayhi salaam saxaabadii baa ridwaanullahi calayhim markuu geed koray ayay waxay arkeen lugihiisa oo dhuudhuuban qosol tabiici ay qosleen saxaabada ridwaanullahi calayhim iimaankoodana qalbiga ku jira markay qosleen waxay ku qosleen lugihiisa say u dhuudhuuban yihiin markaasuu nabi sal alla ly slam wuu arkay iga qoslaya ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma waxaad ku qoslaysaan buu yidhi minjaha cabdullahi bin mascuud iyo intay la egayihin dhuudhuunidooda inay aad u dhuudhuuban yihin baad ku qoslaysaan wallaahi buu yidhi lahuma athqalu cinda allahi min jabali uxud yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaama waxay ka culus yihiin buurta uxud waad aragteen qofkii madiine tegey oo ka dambaysa xaqaa iyo baqiic aad bay u weyn tahay waa buur aad iyo aad u weyn buurtaas aad arkaysiin ayay kama aragtay miisaanka yowma alqiyaama lugahaas cabdullahi bin mascuud ayaa kama aragtay wuxuu yidhi nabi sal ly slam athqal ka culus buu yidhi yowma alqiyaama markii la miisaamo wey marka taas culamadu waxay ku istidlaan waxay dhahaan qofka xataa waa la miisaamaya marka waxaa lagu miisaamaya waxaa weye ma ahan lugahagaa dhudhuuban ama adiga waa buuran tahay ama waa cayiran tahay miisaanka xaqiiqiga waa maxay waxaa weeye miisaanka iimaanka qalbigaaga ku jira wey inta aad jeceshahay jaceylka nabi maxamed sal ly slam laa ilaha ila allah qalbigaaga imisa ilaa boqolkiiba imisa ka qaadatay ma boqolkiiba labaad ka qaaday mise boqolkiiba 70 mise boqolkiiba 75 ilaa inta laa ilaha ila allah qalbigaaga ku buuxdo wey marka iimaanka qalbigaaga inuu ku ziyaadmo ilahay nuur buu ku siinaya subxaanahu wa tacaala aragti dheeraadu ilahay subxaanahu wa tacaala wa caza wajalla ku siinaya saasuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sayidina ilahay ka raali noqday calayhi salaatu wasalaam nabi cabdi mascuud radi allahu canhu قال وحيري وحن لتكذا صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحن لتكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي ما كم ده مركز وحو فري بيقول البقرة سورة البقرة وتقاني سوما سورة البقرة وأخريي بيقول سورة البقرة مركو أخريي وقدرتها سورة البقرة تقريبا لما جزء حوجها وي مركز وحن إسري آيات بقرات بكر ركوع سنة إن شاء الله سورة دي بوسكر دمي بيقول مركو دمي هذا آل عمران بوسكفرتي الله أكبر آل عمران مثل سورة النساء بو فري هذنا آل عمران بوسور نقضي markaasuu yidhi asagoo salaadii ku jira xataa hamamtu biamri suu ilaa aan waxaan hamiyey inaan iska fadhiisto laanna waan daal nabigu uu taagnaa calayhi salaatu wasalaam saxaabigii baa daal nabigii ummaddana uu taagan yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laanna taqriiban 6 juz 7 juz ku tujiyey taraawiixda ma aha xisibka hadda lagu tujinahay ma aha yacni taqriiban 6 juz 7 juz wey taqriiban labadaas suura saddexdaas suura marka wuxuu sameeyey calayhi salaam رضي الله عنه وأرضاه وحيري حتى هممت بأمر سوء أمر وحان هميي بور إن اسكف ديستو النبي اسك دايو لأن أدبو ديري بور صلى الله عليه وآله وسلم ساس بي معناها نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دي سئي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال لقويري أصغر لقويه سنتي جحمين با لقويري يا رسول الله نبي محمد إلهي كود دنبي دافي دنبي قاقي هوري إيكي دنبي محاد لتاقنتهي بي كلها صعبة قار كمدا مركاس وحوري إلهي وكود دنبي دافي محاد لتاقنتهي مركاس وحوري أفلا أكون عبدا شكورا ميانا نقولين بوري أدون إلهي أمها النقى سبحانه وتعالى وعز وجل مركا ساسو معناها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلهي كويري قرآن كي سنة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلهي سبحانه وتعالى ساسو صحابة رضوان الله عليهم أكرامي ضدك سلف الصالحنا ساسي أدونك أوغاين قيمة إنو للهين إلهي بي أوغاين سبحانه وتعالى جنديس عرضها السماوات والأرض إني كخير بدنتهي لك أدونك أنك هذا أنكون مشغول سنة وكذب أردينه ما نقارينه وحال إنسانك وكذب أرد أدونك ما قاري بالي ها إلا أؤجل كيسي وقت كيسي دماغ من صحابة كم من صالحين تكمده ولا ليه جري عبد العزيز بن أبي رواد لديه جري وحل السين جري بالي فراش كيسة وكسي حني أيا لو فراش بوش بدن بها معناها لسيي سوق قصي حدا هبينكي مركا فراش كيبو تابتا وحير والله فراش يو واد باد افجوق سنتها معناها ما شاء الله قفك وسي حدا عاوه وراح يسنى يايو معناها اسفونجي دكان مركا يشوف فراش قدنيس maxaa ku sameeyay ma sawirtaa bas waa taabata wala taabta Soomaa farash inuu macnaha xogaa adag yahay inuu yaa waa iska fiirinaysa Soomaa iska jigan waliba ku seexdan dadka qaar kood uu fiiriyaa oo ku Soomaa marka faraashkii uu saa u taabtay wuxuu yiri faraasho wallahi maxaa ka macaan buu caawa hadan kugu seexan lahaa laakiin waxa ka macaan buu yiri faraashka jannada yaalo ayaa ka macaan buu yiri subhanallah maxay dareensan yihiin marka adduunka hamigooda ma ahayn dadkii saalixiinta ah sida Abdul Aziz oo kale Ilaahu naxariiste waxa weeye aakhira hamigooda ahayd way ogaadeen adduunka inuu yahay kalciin ilmanfush macnaha waxba ma baahaba adduunka waxaan ma aragtay Ilaahi subhanahu wa ta'ala una raalika in dadkii saalixiinta kamid aha qaar ba habeenkii waxay dhameyn jireen quraanka laba mar bay dhameyn jireen macnaha labadii habeenba hal mar habeenkii 15 juz bay akhrin jireen Allahu akbar maanta anagana Ilaahi dambigeena ha dhaafo qofka mu'minka ah asbaabta uu ku helayo saadada ama asbaabta uu ku helayo قلبك إنه قلبي نقض النول إله قلبك نبهنا ولا يا رب العالمين مجاهدة النفس قفك إنه ليماد قفك إنه تدال ليماد قفك كليه والله يا وجع عليه ما أنت محاضرة معانا دقيستي ما أنت محاضرة شيخ بالمقشي هي هذه بحاجة فائدة ستي
maxaa kaa soo galay maxaa ka faa'iidaysa ha sheekha wuu macaana muxaadaradiis way macaaneed aayadda quraanka aad bay u fiicneed codkii ninka sheekha wuu fiicnaa kule codkiisa ma aragtay haya codka wuu fiican yahay haya codka maxaa codka waxaa ka daran aayadihii ilaahay uu subxaanahu watacaala u dhahayay muxuu ilaahay kaa rabay inta codka ka soke ilaahay muxuu naga rabay subxaanahu watacaala codka ka soke ilaahay muxuu naga rabay subxaanahu watacaala qofka inuu taas ka fikira ma ahan waxyaalahan soke oona adduunka ma aragtay qofka marka inuu dadaal la yimaado waladiina jaahaduu fiina لنهدينهم سبلنا قفكي دلالة إله سبحانه وتعالى دلال وكأركو إله سبحانه وتعالى وكبركينا يعني ولش هذا وبركينا سبحانه وتعالى كذلك قفك إنه نوافش بضي نوافش متقانين نوافش وحلها سننك قفك شن صلاة ضد بمال أنت الأولى صوما هي صدقة صوني حج وحياله فرائض باجرو إيه وحياله السننة مرك قفك سننك إنه بضي سننك وحكمت الله بيه تبرك على قفك تكذا مال أنت نبي محمد محمود عليه الصلاة والسلام محمود لسا إلهي محمود لسا سبحانه وتعالى جنة أيو معناها محمود لسا قري الله أكبر جنة بالقري لقال اسمه قروح بديها من سوية الله أكبر جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي سبحانه وتعالى جنات سبحانه وتعالى قلنا سبحانه وتعالى وعز وجل جنة إلهي سبحانه وتعالى أدي قروح بضنتهي شيخ ليراهدو شيخ محمد متولي الشعراوي وان مفسرين تأمة الإسلام ككمد وضن كمصر ليراهدو نكاس آد كأوين وعلمك إلهي سبحانه وتعالى سيي ayaa waxaa la geeyey wadanka maraykanka la yiraahdo inuu yahan jeclahay marka wuxuu arkay baa daar aad u qurux badan sheekhi waa lagu marti qaaday meesha daar qurux badan buu arkay subxaanallah wuxuu yiri cajiib subxaanallah markii daartii la geliyay oo macnaha hatta liftigeeda ama asanseerka waxa la yiraahdo liftiga wuxuu ku raacay macnaha doorka boqolaad miya waxa la yiraahdo hal wuxuu ku tagay ilbiriqsi macnaha nus daqiiqa amal yani wax aan sakan aan ahayn 10 second taqriiban macnaha surcada iyo nadaafada loo diyaari markaasuu aad ula yaabay sheekha wala dhacayo laakiin asaga adduun ahaan lama dhicin culimada raxmatullaahi calayhim waxay lahaayeen كلمات بكسو بحي جرت عجيب لو حوليه جر هدي أد حقك وهد لويس باطل كهو صعب المرة يعني سبحان الله كلمات كيسي كمده رحمة الله تبارك وتعالى عليه هي أساليب التربية ده أولهنجر رحمة الله عليه شيخ يعني المها يريسك وحال وليه أنت قول له وريا تكو هديك الإله النار تكو قلنا يعني ويلكو نحيا سما تكو هديك الإله النار تكو قلنا وانت قف كان تكون حلقة نار تقول إله جي والله أعلم لك هدات له محقق قروح بدن باليري هدات له وريا كالي أني أديك أنت كن إله جلد سنوجي سو كم قروح بدنا يعني لبدا أديك خير بدر بتاع سما لكن أسلوبك بقى له بهاي سما وريا صلاة تكو إله هديك النار تكو جينيا ويلكو نحيا وحلقة صلاة إنه قلب كتو كدو لك هدات له ويلكيجيو ماندو كالي أن وذا تكني سو أني أديك بإله جنة هي نوجي سبحان الله تاسا كالرحمة بدن صوما قف قلب الرحمة كل جرتا وحير صوما إلا أديك مركا الله هديك النار تكو جينيا أديك ما جنة بوس كجرت يا أديك ما جنة بوس كجرت ماي صوما لأن رحمة إلهي بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم وحيري لن يدخل الجنة أحد بعمله بويري قف جنة عمل كيس كوجلا ما بلا اللي يريب ها قف معنا عمل ولا لو جبها هنيه لكن وحوي النبي صلى الله عليه وسلم قف جنة عمل كوجلا ماله قالوا وحيد ولا أنت يا رسول الله حتى أديك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عماشة الله كيد قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا وإله سبحانه وتعالى رحمة ديسة يقول حقوية مركز كذب إله سبحانه وتعالى ما أرتجيلنا مركز ساسي رضوان الله عليهم أي أفهن سنايين مركز قفك مؤمن كأنه أكثرت أذكرت معناها النوافشة هي السنن كأوبة صدق سيد الله سبحانه وتعالى جنة وقديش قصدي شيخ هذه وذي شيخ وحو يري رحمة الله عليه مركي دارتي قروح لبدند لقيه أيا وحو يري سبحان الله وحو يري كيف ما أعده البشر للبشر وحن وحو يري بشر بادياري ضد بادياري سيد إنه كلا صومه هذا اللي يري الله أكبر وحو يري كورم إلهي رب البشر ربي بشر كأبوري وحو الدياري سيء ويجيهين لأن إلهي وحن يعني سبحانه وتعالى يعني بشر كبري إلهي بشر كيوم القيامة جنة وحو الدياري سو كم وين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر وحليل على قلب بشر صومها أفكار تاسي لها يعني ساسي أدونك أفهم سائل قيمة له هنا آخرة جرتو مروا الباء ولا الآخرة خير لك من الأولى أي هرتو له دائما أي مالته استحضار جري قفك إنه صدقة بذي وبركة بذي سيد معروف كهذا أتسميسين وكله قفك إنه وحي نوافشة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان مركي تماضو وحليه جري كان أشد من الريح المرسلة معناها حتى دبيش أرد يسوك أرد بذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهر مركي مادو قولي وحليه جري حالة معناها طوارئة حالة معناها ما أرتي وحاسوق اللي جت عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان دم جاره هالمركي اللي قالوا أي قضاء أهله وريركي سوق عنجري التكاف كي بيجري جرين عليه الصلاة والسلام أدب ود ذلك هذا رمضان شلي وحنا له ما أنت مكوبة مسوا لبوا مسوا سدح ما أنت ما كانت ضبيط طبعا بريان صومنا لحي طبعا أدب وقتك خير كلا ساس أرده مركا أنت خير كلا هيد باولي بدمن مركا إن شاء الله أنت خير كلا أد هلو قفا إليست إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك خوفك مؤمن كأ إنه قفي عن سوى إيمانك جي قلبك إيمان كهر لينه سوى أفي عن هذا إيمانك جي قلبك جا وإن أتقف مؤمن لا ساحبتد لأن قفك مؤمن كوي حكوسه جيدة يا محاضرة قفك فاسق أنا وحكوسه جيدة يا
ها ميلون إله كرالك إيهم بوجينا سبحانه وتعالى لكن خوف كفي عنها ما أنت شيخ بإيمان شيخ بل بنو إيمان يصبح وكسوك حين مرك خوف عن أو برقبته أو خيرك كوسو جيد مر والبيء لا صحيح سوى إله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حويري المرء هذا حديث كسفي عن أحفظه يا إخواني المرء حويري على دين خليلي سبحان الله حتى وحال لمرهن المرء على يعني مزاج خليلي يعني صاحبك سوح جعله وصاص الراحة وحال إذا صاحبك تأثير وحوليه حتى الدين هذا إنه بدلك رأي العلماء لأن بحول المرء على دين خليلي دين ولما ما هن يعني مذهب كيس ما دين كيس الراعة يا بليري معناها صاحبك سوقفك أجي ذا وتأثير يقول لي هذا قولي أسكفر دي ودالن من صاحب عزيزك وأدوك صوع كله صدق وصوع الرئيسة تأثير قوي بوليه سما صاحبك لأن صاحبه حلو بحي صاحب ويبدأ الصاحب وصاحب بيليه وكسو صاحبنا يسوق سو جيده سبحان الله يا مرك قف صالح على صاحب او دين تأت لك كاشتد او خيرك أد لك كاشتد او محاضرة كوغير او خيرك كوسو جيده قف كاس صاحب سو إلهي سبحانه وتعالى كو بركين هذيك اليوم القيامة وحديث الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ذاتك متقين تا يوم القيامة ويسكو شفاعة قاضيا او اسجعليه لأن خير بيسكو أمر جرين هدو أدون كتغنا وأدو عينيا هدو كنو ليهين وحريرينيا هدو دائما خير بوكهلي أما قفك حن أو إلهي سبحانه وتعالى كعب سنين أو دائما شرطكوا أمرنا يقول لي كان إلهي قاتيبة معناه حلقة إنه هبار ما هني وحكى لا آذن كهلي قفك مؤمنين تأه ذاتك مؤمنين تأينه لا صحيح وكذلك قفك مؤمن كأه إن أسيو قلبك إيمانك إلهي وحوجيو قفك كاسر ريو أو نمعذا كافي عنها يستو عندها كرها وتاجن قفك كاهو سيو أو إلهي سبحانه وتعالى نعمداس أونسينين أو أدينا أتكفي عنها مر والبحسوسه إلهي إيمانك مركز وكو زيادين سبحانه وتعالى هبل ما شاء الله وحي وتبابور يقول حد بدن هبل ما شاء الله وحوق ما أركتي وحليه جناح سجاس هبل سانو ليه هدي مر قلبك جتاسو قشنا قلبك كسمر لكن مر والبوحافي دي سائم ساكل ما أنت لشيء جاي ذاتك دباتيسن أو هذا ما أنت وحلو أروري ذاتك أسفيري هفيرين قفك كاكري ذاتك دباتيسن الرب كوسو داي حبضي بازوكها كارك أقعد عيفيري أو دباتيسن ما أنت أمني إفتين كي النور كان ينعمدنا كجرنا وإحنا جمقا مله إلهي سبحانه وتعالى نعم بذنب ونسي إله نوزي هذه هرت إلهنا هن فهم سي سبحانه وتعالى ولذلك من صالحين تكمد أها أيا وحال يجري نكاس وحال يجري لقى ملهين بالي سبحان الله لقى ملهين إندنا ملهين قعمنا ملهين مساجد كو سو غلي بالي مساجد كمد نين بقر با مساجد سو غلي markaas wuxuu arkay ninkan oo iska fadhiyo meel fadhiyo dhahay subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah waan inda waan haaf akaliye macna inda male labada gacmood male laba lugood male waa haaf kaliya socdo way dhulka saa ugu taagan marka ilaahay ma kan nimcu ku siiyay maanta adiga ya ilaahay ma ku dhamaystiray ninkii baa wuxuu dhahay subhanallah alhamdulillah marka nin baqara uu la yaab wuxuu adiga horta kaali maxaad ilaahay ugu xamdinaysaa waxa ma haysid ya نول كوما نول باتهيب ويلي معناه يعني maxaa horta ilaahay uga mahad celinaysa maxaa haysataa yiri balugana ma hays gacmana ma hays adiga qof macnaha iska eber ahba subxaan laakiin fikirkiisa fiiri marka muxuu ugu jawaabay ninkii boqorka ah wuxuu ku yiri ana ilaahay waxaan ugu shukrinayaa inuu ilaahay si carab asaga xuso ilaahay muxuu si yiri carab ilaahay xuso oo subxaanallah alxamdulillah ilaahay igama mancin buu yiri carabkana igama qaalin taasana macaweyna bal fiiri hada laakiin qof waxa laga yaabaa zamankan ku nool hadii gacanta macnaha wax ka gaaraan ama gacanta ay wax yar ku dhacaan maanta dhan meeshu tagaba gacantayda ma aragtay isbitaalkan maanta tagay raajitaan sahre kana ay ku dhacay maanta uu ka sheekeynay nicmadan kale uu ku hadlaay inuu leeyahay in kale baba ogaba marka ikhwan wallahi ilaahay nicam badan buu nasiiyay laakiin yaa garanaya yaa fahmayo way ninba maalin waxa lagu yiri baa liga meeshu tuugsanay masaajid buu istaagay oo dhameystiran oo xoogiisa iyo murqiisa oo albaabka kama soo gali karaba markaas waxa la yiri sayd buu istaagay oo dhex tuugsan ninba yiri marka waxa dadkii hore ahay markaas waxa lagu yiri gacantaada iga gad buu ninba ku yiri gacanta iga gad intaas oo bilyan baa ku siinay markaas yiri waxa ku dhacay gacanteeda ku siinay iga tag buu ama lugta iga gad intaas oo kan ku siinay madaxa iga gad intaasan ku siinay wuu diiday wadnaha iga gad beerka iga gad adiga asaga dhanbu macnaha uu kala jajabiyay macnaha wuxuu inta iga gad asagii baa wuxuu noqday balaayin socoto noqday Soomaa markaas ilaahay intaas oo bilyan buu ku siiyay markaas bini aadam makhluuq sidaado kale wax weydiisanaysaa buu يعني إلهي أنت سو بليون بكسر قعنت هذا وبليون لقط هذا وبليون أنت سو بليون قلبي باركي وبليون بليونات كاس أنا صعوتات هاي مركز نين أذيك وفعل وحوي دي سنة إلهي ما قبل ينبوكسي سبحانه وتعالى مركز نعم بدنبو يا أخوان إلهي نسيه ما أنت دان كشك إنه نعم ذا عندها كلية ليهين لابد محاضرة سدح محاضرة كما في الله لكن بس نين عندها لهين أتكولا كل أدون كسي وأرك تاخد نين عندها لهين كاشك نعم ذا عندها أسا كل شيء مركز وحو ما أرك كل لها ده عندها لها أذان كو أرك لها وكل لها سما ده عندها لها أذان كو أرك لها ويدي وأرك لها سما سبحان الله الحمد لله مركز إلهي بما هذا إسكاله سبحانه وتعالى وحبيا إذا كل هيرين بركة إن شاء الله تبارك وتعالى قفك إنه كد ذلك قلبك سوء تفقد لها سيد إلهي سبحانه وتعالى علاقة في عن الله سمين لها خاصة بشان بركيسا إن تكفي عن الله صاحبه إن إيمانك دائما وحي إيمانك كشيكينا محاضرة هالنقطة أيضا قرآن كهالنقضان لدى يستوسي إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إنه زياديو إلهي سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك